assalaamu calaykum kusoo dhowow daawada qaybta xigtaa ee sheekada ku saabsan xaaskayga jinni bay ka ahaatay oo markaani maraysa qaybihii ugu xasaasisanayd. sheekada qaybtaydii hore waxay noo joogtay markii sidaasi aan ku yiri ayay gudagashay inay timaheeda ay ku ciyaarto, waxaana igu tiri iyada oo dhoolla cadaynaysa ii jawaab wiil yahow kibirka badan, iskana jir in aad iska kay indha tirta aniga. sheekadani waxaa tarjumay saaxiibkay Anteeno anigoo marcada ayaa kula socodsiinaya. qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa markii sidaasi igu tiri aniga marnaba uma aanan jawaabin oo shib ayaan ka iri. markaas ayay haddana mar labaad waxay igu tiri waa dilaysaa isaga. qaabkii ay amarka ii siinaysa anigoo aad uga caraysan ayaa waxaan ku iri oo haddaan dilana maxaa dhacaya. waxay iigu jawaabtay haddii aadan dilin waxaad ku qasban tahay inaad aniga ii keentaa. kadibna inta ii soo dhawaato oo timaheedii ay ka fuqda ayay kuweygii gacanta ay ku dhigtay oo waxa ay si hoose ii tiri ama waa inaad ii keentaa ama aad dishaa, wax ka dhexeeya ma jiraan. ogowna qaamuuskayga in laan laga heli karaynin ereyga maya, welina ma baran xabiibi. markaas ayaan ku iri qof adiga oo kala suurtagal ma tahay in uu barto macnaha jacaylka. waxay iigu jawaabtay haa, waana sababta aan darteed kuu jeclaan doono dumaashi. markaas ayaan ku iri haddii aad jacaylka aad taqaanay sideed ayaad ku qorshaysay inaad disho? xaggee buu jacaylka kaa gelayaa? ma qalbigaada xun mise damiirkaaga dhintay? yaa ku dhahay anigaa qof dilayo? maya xasanow, adigaa dilaysid ninkaas. markii ay sidaasi igu tiri ayaan iri markaad aniga ileedahay adiga ayaa dilaysid oo ma aad adiga dishid, ilaan adiga ayaa arrinkaani ii diray bilowgana meesha keenaye. xasan idhegayso, anigu adiga oo kale ma ahi oo malihi awoodda aan ku dilayo, maadaama markii adduunkiina la joogo awooddeeda aysan ahayn. sababtaasi daraadeed ayaan adiga howshaasi aad kugu diraya oo aad u fulinaysaa. markaas ayaan inta cod dheer aan ku qayliyo waxaan ku iri maya qofna ma dilayo, anigana suurtagal ma ahan in aan insaan berri ah aan gebi ahaanba nolosha dhaafiyo si aan adiga kuu raaligeliyo, ee adiga iyo macal alkaatuugiina jaxiimiga ahba isla aada howshaas oo ninkaasi soo dila. markii aan sidaasi ku iri ayay iigu jawaabtay maanta waxaan ku siinayaa cinwaanka maqluuqan, birina qorshe aad kusoo xirogelin lahayd ayaan degayaa, kadibna jaxiimo ayaan aadayaa. okay, haddana waan kaa tagay ee nabaday. markaas ayaan inta iga miriqday ee igu soo laabatay iyada oo weliba wada ciwaankii aan ninkaasi aan kasoo heli lahaa, kadibna waa iga tagtay. kalsoonida ka muuqata ayaan aad ula yaabay iyo sida ay nafteeda ugu kalsoon tahay anigoo weliba goobtii fadhiya oo aanan kicin. waxaa maankayga ku dhalatay fikrad, kadibna hirgelinteedii ayaan ku dhaqaaqay. waan istaagay waana baxay anigoo u socda dhankii ciwaankii ay shiireen ay ii soo qortay. saacad kadib waan gaaray. markii aan gurigii tagay ayaan albaabkii garaacay, waxaana iga furtay gabar yar oo markaas aan waxaan weydiiyey qofka aan doonayay, waxaana ay ku dhawaaqday baaba, qof ayaa kuu taagan oo ku raba. ninkii ayaa ii yimid, waxaana ka dalbaday inaan si gooni aan u wada fariisano una wada hadalno, waana uu isoo dhoweeyey isagoo iga dalbaday inaan gudahaan usoo galo gurigiisa. aniga sheekada maba aanan sii dheereynin. markii aan fariistay ayaan bilaabay inaan ka hadla ujeedka aan ugu imid ninkan. waxaana hadalkii aan ku bilaabay sidan: arrinka aan kuugu imid anigu waxa uu yahay mid aan dib loo dhigi karaynin ama aan la daahin karaynin. waan ogahay inaad adiga awoodid akhrinta afkaartayda, waxaana kuugu imid si aan kuugu digo, waayo alkaatuuga arrintaada way ogaadeen, sidoo kalena goobta aad degan tahay way garanayaan. waxay iga dalbadeen inaan ku dilo, balse aniga ma doonayo dilkaada, ee adiga ma awoodaa inaad iga caawiso inaan amal aan ka soo badbaadiyo xabsiga qubatu nuur. markii hadalkii aan ninkaasi aan ku iri ima uusan jawaabin in cabaara ayuu aamusnaa isaga oo isoo eegaya sida inuu wax baarayo oo kale. markaas ayaa waxa uu igu yiri maxaad haatan doonaysaa? waxaan ugu jawaabay waxaan ugu imid inaan kuu digo, sidoo kalena aad i caawiso. oo maxaad iiga digaysaa? ayuu ii raaciyey. jinniga iyo alkaatuuga ayaan kaaga digayaa. miila kaftamaysaa nin yahow? haddii aan kula kaftamayo sidee ayaan ku ogaaday inaad adiga tahay jinniga dadka isku bedelay? adiga miyaad waalan tahay mise qofiyo ayaa tahay? tan miyaad abaal iiga dhigtay markaan kuu digay aniga ood ku dili karaya? orod qof kale oo raadso oo waalidaada waqti u haya, aniga waqtiga uma hayee. markii ninkii sidaasi uu yiri inta kacay oo albaabkii aan furayaan qaab aan wanaagsanayn guriga uu iiga soo saaray, anigana guriga ayaan isaga soo laabtay, waliba aniga oo aad uga careysan qaabka ninka aan u daneynayo oo ila dhaqmay. waxaana dareemay shalay ahayd inaan shiireen warkeedii aanan qaadan oo ninkaasi aan dilin halkii aan ka badbaadin lahaa.
muddo toddobaad ayaa ka soo wareegatay maalintaasi welina ima aysan imaanin Shiriin wax kalena ma aanan arkin balse toddobaadkaasi kadib ayay ii timid weliba toogtan carafteedii ayaa i soo gaartay ka hor imaanshiyaheeda markii ay ii imaaday ayaa inta ay ii soo dhawaatay gacmaheedana ay garabkayga saartay afkaygana ay dhagteeda u soo dhaweysay ayay igu tiri nolosha way soconaysaa qofna ma awoodo inuu joojiyo wixii aad maanta fulintiisa ku fashilantaana biri qabo hadalkaas markii ay tiri ayaan mar kale ay ii soo dhawaatay ilaa jirkeedii iyo kayga istaabteen xilli xabadkeeda uu taagan yahay toosna uu garaacay laabteeda gacmaheedana waxay ku ciyaarsiinaysay timahayga si ay dareenkayga ay u badasho balse waxaan ku guulaystay inaan degdeg aan isu qabto aniga oo soo xasuustay Amal waayo suurtagal ma ahan in Amal khiyaano aan ku sameeyo xitaa afkaartayda gudahayga kuma khiyaani karayo dib ayaan uga gurtay aniga oo dhowr tallaabo ka fogaaday markaas ayay igu tiri maxaa kugu dhacay Xasanow maxaad ii fogeynaysaa markaas waxaan ugu jawaabay Shiriin wax dhacayba ma jiraan iima baahnid miya ayay igu celisay ilbiriqsi waa macquul balse ma iloobi karaya gacalisadayda Amal adigana waa in aadan iloobin inaad walaashay tahay ayaan ugu jawaabay markaas ayay igu soo eegtay indho dareen badan oo ku jiro oo waxay igu tiri walaashay miya iga qurux badan aniga ahaan waa gabadha ugu quruxda badan adduunka weligeena ma jeclaan doono gabar aan iyada ahayn laakiin Xasano aniga marnaba kaama dalban inaad i jeclaato maxaad doonaysaa marka Shiriinay adigu waad igu cusub tahay waxaan doonayaa oo aan jeclaystay in aan ku tijaabiyo sidaas ayaan ka doonayaa aniga laakiin Shiriin ogow adiga anigu taasi ma doonayo Xasanow indhahaada waxaan ka arkaa iyo hadalka afkaada ka soo baxaya isma lahan ee iskiprint iyo adkayntaba iska daa Shiriin sidee naftaada ku ogolaatay in aad la raaxaysato walaasha xabiibkeeda aniga dhabteeda kaama soo xoogin si aad milkiyadeeda qaaska u noqotay taasi ugu Xasan oo Shiriinay maxaad ku magacaabaysaa maxaad u taqaanaa marka isku daygan waxaan jeclaystay in aan kula baashaalo waqti aan kula qaato haddii ay Shiriin shay jeclaysatana waa qasab inay heshaa aniga ma ihi shayga aad doonaysid marka aad doontana sida doonta ka yeelanaysid taasi maanka ku hay Shiriin Xasanow aniga haatan dhammaantiina agteeda shay ayaad ka tihiin haatan runta ii sheeg muxuu yahay shayga dareenkaaga kiciya markii aad iyada la joogtid balse aniga aadan ila joogin markaas ayaan inta moolka qalbiga ka qoslay waxaan ku iri jir ahaan in aad is shabahdaan waa macquul balse farqiga labadiina idin dhaxeeya waa mid aad u weyn waayo adiga waxa kugu yar jaceylka iyo siismada naxariista iyo jileeca ogowna haddii naagaha dunida oo dhan ay kulmaan oo ay isku soo bahaystaan in aysan qalbigayga hanan karin waayo waxa hore u hantisa Amal iyo dhowl cadeynteeday quruxda badneed markii sidaas aan ku iri waxa hadalkii qaadatay Shiriin oo waxay igu tiri haddii aad sidaas oo dhan aad u jeceshahay naftaada halisna aad u gelin karto hal dhowl cadeyn oo iyada ay leedahay maxaad isaga qasaarisay fursadii ay ku soo martay oo maxaad u diiday inaad jinniga insiga ahaa igu soo wareejiso ama aad disho haddii Amal dhab aad u jeceshahay marnaba arintaasi kama labanlabayseen ee sideen kuuga aaminaa ani jaceylkaadana aan ku aamini karayaa waa runtaa Shiriin ma jiro qof istaahila in Amal hal ilin dartiis u daadiso kadib inta ay ii soo dhawaatay ayay mar kale gacanteedii qabatay oo waxay igu tiri maalin aan maanta ahayn waa laga yaabaa inaan rumaysto jaceylkaada ee haatan ma iga ballan qaadi kartaa mana ii dhaaran kartaa kaadantaa darteed inaadan mar kale ii qiyaamin sidaad hore u samaysay waan ku dhaaranayaa inaan mar dambe ama aan mar kale nolosha Amal aan qof kale inta ka hormarin balse aniga waxaan ka codsanayaa inaad runta ii sheegto waxna aadan iga qarin si uusan mar kale iigu dhicin si la mid ah tii odaygii Cumar oo kale okay hagaag haddaba i dhigaysa marka Xasanow heshiiska aan alkaatuuga la soo galay wuxuu dhigayaa in ay sii daayaan xorriyadeedana ay dib ugu soo celiyaan kaadanta isla markaana ay u soo gacan geliso insaanka aan insiga ahayn adigana heshiiskii qayb ayaad ka tahay waana sababta aysan ilaa haatan alkaatuuga wax dhibaato ah kuugu geysan balse haddii aad fashilanto aniga iyo adiga iyo kaadanta midkeenna xitaa daqiiqad ma sii waari doono oo waana la tirtiri doonaa tanina waa fursadeenna haatan laga bilaabana diiradda waxaa saartaa sidii aad maqluuqaasi ku qaban lahayd oo aniga aad igu keeni lahayd waxaana kuu dejin doonaa qorshe aad ku qaban kartid kuna baran kartid adiga oona wax shaki ah iyo tashwiish ah aanan ku furin isaga laakiin wubi ibartee wax walbaan horaan ugu sheegay maxaa tala ah
markaas ayaa inta ay qosashay hadalkiina ay qaadatay mar kale waxay igu tiri muhiim ma ahan waayo qofkan kuu diray ma ahan qofkii aan doonayay haddii uu ahaan lahaa warkaasina aad ku dhihi lahayd daqiiqad xataa kulama sugayn ee horey ayaan kaa dili lahaa wuxuu isagana awoodaa inuu afkaartaada uu akhristo in yar haddii uu kaa shakiyana horey ayuu kaa dilayaa isagana dilistaadana agtiisa wax sidaas usii weyn kama ahan taasi maanka geli xasan markaas aniga oo quus taagan haddana yaaban waxaan ku idhi haddiiba sidaasi ay tahay hore ayuu iga fahmayaa khalaas way ii dhammaatay aniga markaas ayaa iyadoo kalsoonidii aan ku aqaanay ee ka muuqata waxay ku tiri taasi waa run balse waxba ha ka welwelin anigaa ku barayo qaabka aad u qiyaani lahayd isaga Shiriin haddii sidaasi ay tahay aniga waxaan kuu ballan qaadayaa in makhluuqaasi aan kuu keeno weliba kugu keeno goob kasta oo aad rabtid si ay suurtagal ay ugu noqoto inaad gacanta aad ku dhigtid ee bal adiga haatan ii sheeg maxaa la iga doonayaa inaan sameeyo xasan aniga wax walba kuu sheegaya hawshan si fiican ayaan kuu barayaa maadaama aad la macaamilayso qof nuuciisa uusan jirin awooddiisana ay ka sarreysa awooddeenna xisaabtana waa inaad ku darsataa dhibaatada uu noo geysan karo haddii qorshaheenna uu fashilmo marka kow waa inaad fulisaa qorshaha koowaad kadibna waxaan ogaanaynaa heerka awooddiisa ay la eg tahay kadibna annagoo heerka awooddiisa ku xisaabtamayna ayaan gudagalaynaa sidii aan ku geyn lahayn madax 3 geesood ah si ay nooga suurto gasho inaan gacanta aan ku dhigno madaxan 3 geesoodka ahna muxuu yahay waxaa jirta 13 meelood oo uu ku yaala madaxan 3 geesoodka ah waxaa suurtagal ah inuu badda uu ku dhex yaalo ama bariga meesha uu madaxaani ku yaalana waxay leeyihiin tilmaamo u gaar ah goobta noogu dhow ee haatan uu ku yaalana wax badan kaama foga wuxuuna ku yaalaa buurta Hebla oo dhowr meel hadda inoo jirta kadib markii hadalladaasi aan isdhaafsanay ayaan tobaneeyo su'aal waxaan ka weydiiyay madaxan 3 geesoodka waxaana iga siisay jawaabo la yaab leh oo qaarkood xitaa aan rumaysan kari waayay markaas ayaa inta ay qosashay jugna ay siisay waxay tiri maxaad u aamini laadahay oo aad u rumaysan laadahay ajaa'ibkaas markaas ayaan intii aan hadalkeedii maqlay kadib waxaan ugu jawaabay anigu waxaan ba aamini laahay sida aad waqtigan oo dhan aad ii siinayso su'aalahayga midna aad uga jawaabayso adigoo markii hore xitaa aanan ii ogoleen in su'aalaha noocan oo kala si fudud aad iigu jawaabto kadib hadalkii inta ay qaadatay iyadoo indhaha igu gubaysa ayaa waxay tiri waa runta ee adigana ogow wax walba oo dhacaya inay xiriir ay la leeyihiin waxaan aniga doonayo balse wax xiriira lama lahan waxaad adiga doonayso taasina ma ahan sir aan kaa qarinayo oo hore ayaanba kuugu sheegay wax waqtiga ah uma hayo in aan adiga been kugu soo dhoodhoobo ama aan iska kaa gado ogowna markasta Shiriin inay leedahay ujeeddo iyo hadaf marnaba ha iloobin midaas xasanow kadibna inta ay qosashay iina jilba jabsatay ayay hadalkii sii wadatay oo waxay ugu tiri dhawaan ayaan halkaas ku wadi doonaa waxaan weydiiyay sababta aan haatan u aadin kareyni balse waxay ii sheegtay in haatan casar gaaban ay tahay oo qorraxda ay nagu dhici doonto markaas ayaa waxaan ku idhi laakiin ma samayn kartid miyaa sida amal ay samayn jirtay oo kale oo ilbiriqsi gudihiis iguma geyn kartid miyaa waxay iigu jawaabtay waan kuugu geyn karayaa balse waxaan doonayaa ayaa waxay tahay in goobta lug aad ku tagto si aad u barato halka ay ku taalo hadhowna kaligaa aad uga soo laabatid waxaanay hadalkeedii ii sii raacisay aniga Shiriin ayaan ahay waxaan sameeyana qof raaligelintiisa uma sameeyo hana ii malaynin kaadantaa oo kale inaan ahay oo adiga dartaa si ay kuu farxad geliso wax walba u samayn jirtay sidoo kale ogo waqti kasta oo ay adduunkeena kuu soo qaado inay markii ay ku soo celiso laga goon jiray cadaab daranna ay martigelin jirtay oo jirkeeda maalmo ay ku qaadan jirtay inay ka soo kabato adigana aadan waxaas marnaba aadan ka warqabin isla marka ay ku imaadana haddii aad wax ka codsato kaama diidi jirin xitaa haddii ay cadaabka ay u laabanayso markaas ayaan waxaan ku iri aniga waxba kama aanan ogeyn arrimahaasi oo dhan haddii aan ogaan lahaana marnaba uma ogolaadeen adigana waxba kuuma tarayso inaad i xanuujiso ama aad i xasuusiso kurbadaasi oo idilna ay iga sii badato mar walba oo aad fursad u heshid sidii ayay Shiriin iga tagtay waxaana ahayd gabar jecel inay wax walba uunka kale ay kaga duwanaato haddii ay noqon lahayd labiskeeda dhoolla cadeynta xanaaqa deganaanta soo muuqashadeeda qarsoomidda hadal adeegeeda iyo guud ahaan habdhaqankeeda halka ay noo joogto qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan xaaskayga jinni bay ka ahaatay waxa tarjuma saaxiibka Cabdiraxmaan Xasan anteena qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabad